haddii aan anagu naqaano tumaal, kabatole iyo magacyo kale oo fool xun, adduunku waxaa looga yeeraa gacmo dahab iyo injineer. Waa xirfad aad looga jecel yahay. wiilkan da'da yar waa Soomaali, waxa uu leeyahay hal abuur dhif iyo naadir ah oo Soomaalida iyo Afrikaba ku yar. waxa uu ka shaqeeyaa shaqo ay dadka Soomaaliyeed ku faquuqaan dadka ka shaqeeya. waxa uu sameeyaa noocyada kala duwan ee kabaha isagoo adeegsanaya xirfadiisa gaarka ah. ma aha wax cusub in qof Soomaali ah uu sameeyo kabaha labiska iyo kuwa sida maalinlaha ah ee ay dadku u isticmaalaan. magaaladii wax soo saarka ee Baraawe ayaa berisamaadkii laga heli jiray xirfadlayaasha kabaha soo saara. laakiin waxaan warbixintan ku eegi doonaa Abakar Rorow, xirfadlaha cajiibka ah ee farsameeya kabaha iyo caqabadihii uu la kulmay. hadda ka waxa waa 44 waay 44 waay kana waa 41 masha Allah. xirfadlaha Soomaaliyeed Abakar Rorow waxa uu muddo 7 sano dhan ka shaqaynayaa soo saarista kabaha iyo naqshadaha cusub ee labiska. waa wiil daayar ah haddana leh xirfad ay u ooman yihiin bulshada Soomaaliyeed. naqshadeynta kabaha waxa uu ku soo bartay rafaad isagoo ay soo wajaheen markii uu bilaabayay caqabado markuu kalifi gaaray inuu iska badaayo. ugu dambeyntii riyadiisii ahayd inuu soo saaro kaba casri ah isla markaana uu isagu naqshadeeyay naqshad u gaar ah waa uu ku guuleystay inkastoo rafaad badan iyo waqti adag uu ka soo maray. waxyaabaha cajiibka ah ee Abakar Rorow la gaar yahay waxaa ka mid ah farshaxan cusub oo horey aan loo arag oo maskaxdiisa ka soo maaxatay tan iyo markii uu bartay naqshadeynta kabaha. waxa uu la shaqeeyaa koox ajaanib ah oo ku nool dalka Kenya. markii uu bartay xirfadani waxa uu si toos ah ugu biiray kooxdaasi oo ilaa iyo haatan uu u soo saaro kabaha iyaguna ay sii iibiyaan. waa xirfadle aan dheef badan ku haysan xirfadda cajiibka ah ee uu leeyahay. Abakar Rorow xirfadlayaasha sidiisa waxay helaan taageero dowlad iyadoo laga faa'iideysto aqoontooda gaar ahaaneed. laakiin nasiib daro dowladda Soomaaliya kama aysan faa'iideysan xirfadiisa. Soomaaliya waxaa kabaha la xirto looga keenaa inta badan dalalka Itoobiya iyo Shiinaha iyo dalal kale, balse waxaa taasi looga maarmi karay Abakar Rorow iyo xirfadlayaasha Soomaaliyeed in shirkad gaar ah loo sameeyo taasi oo soo saarta kabaha kadibna laga iibiyo dadka Soomaaliyeed intii ay iibsan lahaayeen kaba lagu naqshadeeyay dalal kale. wiilkan Soomaaliyeed ee da'da yar waxa uu u baahan yahay taageero shacab haddii uu waayay mid dowladeed. qof kasta oo Soomaaliyeed kabaha uu isticmaalayo haddii uu isagu ka iibsado waxay u noqonaysaa in macaamiil gaar ah uu lahaado, taasi oo u horseedi karta inuu asaasto shirkad gaar ah. haddaba haddii aad la socotay sheekadiisa muuqaalka laagsaar siina sheer garee si ay dad badani u taageeraan.